السلام الله عليكم دمان waa idin wada salaamay asxaabta ku xiran channelkan Hilaac Sool meel kasta dunida daafeeda ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa amni iyo amaano inaad ku haysataan inteena dhimatayna ilaahay subhanahu wa ta'ala hooy uga dhigo jannatul firdaws al-a'la intay ka geeriyoodeenna samir iyo iimaan Allah ka siiyo inteena nool ilaahay jidka toosan hanagu hadeeyo hana naga dhigo kuwii ku kulma jannatul firdaws al-a'la inta kadib 22 bishan February waxa dhacday geeri naxdin leh oo qof walba oo muslim ah oo haddana Soomaali ah qalbigiisa runtii raad ku reebtay sidii qalbiga looga tirtiranay aad iyo aad u adag tahay waa qarixii lagu dilay al-fadiila Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed qaraxaas oo ka dhacay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo saan hore u sheegnay baa sheekhu wuxuu ka soo jeedaa gobolka Sool ama gobolada la isku yiraahdo SSC ama gobolka Daraawiish runtii intaan hadalkayga u guda gelin qof walba oo muslim ah waxaan ka codsanayaa oo uu clipkan soo gaaro haddana Soomaali ah in uu sheekha u duceeyo xilli kasta uu sujuudaha ku jiro intii uu ka xasuusan karo habaarana xilliga ducooyinka la aqbalo ee sujuudaha lagu jiro waliba xilliga salaatuleelka qofkii uu kaco kale dadkii dhibtan ka dambeeyay dilkan geystay qaraxan geystay in uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadeeyo haday ahaan lahaayeen dadkii wax hore u dili jiray haday ahaan lahaayeen kuwa cusub aan garanaynba kuna habaaro oo kale in aysan gacantooda sababsan cid ka dambaysa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed runtii sheekha wuxuu ahaa aniga macalinkayga ilaahayna waxaan uga baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu jannatul firdaws al-a'la hooy uga dhigo subhanahu wa ta'ala runtii ismalihi dilka Sheekh Cabdinaasir cidii ka dambeysay way qarsoomi doontaa hadda ka hor ayaa waxa dhacday in lagu dilo gobolka magaalada Kismaayo gabadh ka soo jeeday iyo seegeeda gobolka SSC gaar ahaan gobolka Sool gabadhaas oo oran jiray Hodan Naaleeye oo iyana lagu dilay qarax kadib baaritaana ayaa la galay guddi ka soo jeeda gobolada SSC balse deegaan hadeer ku ah oo degan deegaankooduna uu yahay magaalada Kismaayo ayaa waxay yiraahdeen eedan ama dilalkan loo geystay Sheekh Cabdinaasir inaan cadeeno wuxuun ama raad uun aan u helno xoogaa dhaqdhaqaaqay sameeyeen nimankan al-shabaabna aan u tagno runtii al-shabaab horta way hadleen waxay ku hadleenna dib baan idinka sheegi doonaa aduu guddigii way tagtay shabaab bay u tagtay maxaa yeelay shabaab waa dad Soomaali ah waa dad aan isku afnahay waa dad haddii la hor fariisto aan is af garanayno waa loo dilay ugu horeyn su'aash la weydiiyay waxay ahaayeen dilka Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed meedika ka dambeeyay mise idinka geystay maya maanu geysan bay yiraahdeen maya maanu geysan dilka Sheekh Cabdinaasir maya maanu geysan haddaba yaa geystay balidku is weydiiya waxa kale la weydiiyay su'aasha labaad dilka Hodan Naaleeye iyo seegeedana meedika ka dambeeyay waa maya ayay yiraahdeen taasina waxa kale la weydiiyay sanadahan dambe dilalka ka dhaca gobolka SSC gobolka Sool maxaad ka ogtihiin sameedika geysta taana waa ay iska bariyeeleen oo waxay yiraahdeen anagu maanu geysan waxaanu ka ognahayna ma jirto waxay kale oo sii raaciyeen anagu qofka aanu dilna ma qarino oo waanu sheeganaa waanu cadeysanaa waayo bayaana ayay soo saaraan qoraalo ayay soo gudbiyaan oo waa ay sheegtaan sida xaqiiqda qofka ay gacantooda ku geystaan waxa ay kale oo sii raaciyeen dadka degan gobolada SSC ee Daraawiish wax colaad ah oo naga dhaxaysa ma jirto sababtaan u leeynayna maxay tahay haddaba hadalku waa iska cad yahay qorshuhuna waa iska cad yahay dilkan yaa la oran karaa waa u fuliyay yaa si la oran karaa way ka dambeeyaan
xaqiiq waxaan aaminsanahay horta hal qodob waxaan fariin u dirayaa nimanka guddiga ah ee baaritaanka ka wada magaalada Kismaayo ee ka soo jeeda gobolada SC. waxaan idin oranayaa baaritaanka koow waxaad ka soo bilowdaan culimadii sheekha uga yeedhay magaalada Kismaayo. culimadii wacatay sheekha ee sababteeda lahaa in uu yimaado magaalada Kismaayo. baaritaanka inaad halkaa ka soo bilowdaan ayaa idin kula talin lahaa. ta kale ari qorsheysan buu ahaa. sheekhu intuusan laasacaanood ba tegin waxay u eg tahay arin la sii qorsheeyey in sheekha intii loo yeero la keeno magaalada Kismaayo kadibna halkaa lagu dilo. waayo waxaan ogsoonahay inaysan dilka shabaab aysan ka dambeyn, inkastoo shabaab ay sheegatay ee tiri anagu wax maanu dilin kamaanu dambeeyna ay qiralaal ku sameysatay. waayo taana waxa ku cadeynaysa inaysan dilka shabaab ka dambeyn. sheekha waxa ay noo cadeyn kartaa shabaab laasacaanood buu ku dili karay sheekh. sababta ay ugu beegsatay magaalada Kismaayo maxay tahay? marka guddiga baarida wada waxaan oranayaa baaridiina waxaad ka bilowdaan ciddii sheekha uga yeedhay gobolka Sool, cidday doontaa ahaato, culimo ahaato, dhalay waxaad cid maamul ahaado, cidday doontaana ahaadeen inaad iyaga baaritaanka ku bilowdaan. Axmed Madoobena waxaan leeyahay haddaanu nahay gobolada SC waxaanu ka rabnaa cadeyn cad oo dilka sheekha iyo dilalkii hore dadkii ka soo jeeda gobolada SC lagu qarxiyay magaalada Kismaayo inaad sheegatid oo aad tiraahdid aniga ka dambeeyay ama aad iska bariyeeshid oo meel aan u raacno aad noo sheegto. Axmed Madoobe labada wax kama dhaxeeyaan. xaqiiq baan kala hadlayaa, labada wax ka dhaxeeya ma jirto. عندي له أما آمنسن دلك الشيخ عبد الناصر إنه قرسومي ينا قرسومي مايو مرة بينها كهر دعوه عدما فربضان أهر دعه وان هيا بس مرة بينها سيدايو حدنا عد مرة بينها ندوش كساره دلك الشيخ عبد الناصر إلا أي وح كلا عدانيان أو برئي بي أي كلا بحيان باريتان كيغنا واسي وضيا هدو الله ود لسورة قليو بل سي ogaada dilka sheekha cidii ka dambeysay inaydan qarsoomeen ee baweerna uu in fashili doono. marka labada fariimood u dambeeya ee aan ku soo celinaya waxay tahay qolyaha guddiga ee baaritaanka wada in ay ugu horreyn baaritaanka ka bilaabaan cidii sheekha marti galisay ee uga yeedhay gobolka Sool ee ku casuuntay magaalada Kismaayo ciday doontaa noqoto. culimada ugu waaweyn magaalada Kismaayo ha noqdeen haday rabaan. fariinta labaad aan dirayna waxay tahay Axmed Madoobe maadaama al-shabaab ay iska bariyeeleen dilkii sheekha iyo dilkii hodanaalay saygeeda inaad adigu meel noogu sheegto ama adigu xambaarato ama meel aan u raacno aad noo sheegto. labada mid uun bay noqonaysaa insha Allah. wixii cadeema ah markaan soo kala hufno iyo cidii hadda aanu carabaabeena ma jirto ayaanu dibidii kala soo socodsiin doonaa insha Allah biidmillaahil kariim. sida iyo nabadgelyo.